السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين باخيار تيدانو جعل لهايو وحال سو غاري امينتي انه هودا يدين سو مرين جيرنay war waxaan idinka inay dhulka ay Soomaalidu degtiya caalamka intiisa kale warkuna waxa idinkaga imanaya xarunta guud ee muqbaahiyaha caalamiga ee FOS News ku leeyahay magaalada Hargeysa. hadduu Rabbi ogolaado waxa idin la soo codsiinaya anigoo Caawil Cabdiraxiin Kayse Caawil Burcaawiya. qodobada wararkayaga kuwada ugu door karoon lana waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsi tiiraanyala u diray Caawil Cilmi Cabdalle oo ah maayirkii ugu horeeyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. qarax ayaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa tacsi tiiraanyala u diray ehelada qaraabada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dalka Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa gaadhay dugsiga Harqaboobe kaasoo lagu tababaro ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya. Turkiga ayaa ka hadashay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen 2 ruux oo ka soo jeeda dalkaasi. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door korona imikii haatan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada.